Soomaali weyn meel walba joogtaan 114 quraanka caddiisa aan ugu salaanay dhanka midig waxa iga xigo alfanaan Imraan Khan dhanka bidixna waxa iga xigo Ugaas Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdullaahi King Imraan Khan in aad arwaa marka ugu horeysay ku soo dhawow barnaamijka maxaa cusub qays aad ba u mahadsantahay waan ku dhawahay barnaamijka halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali weyn meel walba jooga waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ugaas Cabdullaahi sidoo kale tadino aad iyo aad baan ku salaameynaa maanta waxyaalo badan baa cusub oo malaya maxaa cusub maanta marta asxaabta dhamaan halka ma ka salaameynaa aad iyo aad dhamaantood taageeraha meel walba joogan Soomaaliya adduunka afartiisa dacal meel walba ka joogan waan salaameynaa waan jecelnahay masajabada habba noo soo diray su'aalo badan laakiin mar inaan anagu nimco joogto iyo aan ka jawaabna weey su'aalo badan bay weydiiyeen insha Allah ka jawaabna Ramadaan Mubaarak markale waxa laakiin ciyaarta aan daawanay aad ka u sugeynay dabaaldega waxay ahayd Portugiiska iyo Denmark oo ninkii Ronaldo maadaama lugti koowaad lagu sameeyay hortiisa dabaaldega isaga khaas ku leeyahay oo leeyahay suu ciidanka Manchester ciyaareen Rasmus Hojlund leeyahay ayaa lugti labaad wuxuu ku sameeyay dabaaldegaas oo markaa asaga suubi marka wuxuu yiri asaga lugta labaad ayaa anigana ku tusi doona maadaama aad ugu sameysay dabaaldegayga maanta la ka tusay Hojlund Soomaali Manchester United afkar uga dheelay Manchester United waana taageero Ronaldo markii uu hadlay wuxuu yiri aadam ku taageerayo idol baa ahayd marka sida daradeed asaga wuxuu yiri waa sameyn kartaa laakiin aniga aabaha waxa uu sameeyay anaas kale marka wuxuu yiri adigu ka dhibay Ronaldo sidoo kale hadaan ku darsadaan wuxuu ku qaatay asaga naftiisa waxaan ugu macdareen Guinness World Record ninka macnaha ugu safashada badan tartamada caalamka ayuu ku qaatay rekoorkaas iyo haddana wuxuu marayaa markii la isku daro inta kulan iyo inta ciyaari waxa uu soo wada ciyaaro dhamaantood 929 gool buu marayaa Ronaldo marka kunkii waxa uu dhimay 71 wow gool welina uu ku sii jiray wuxuu yiri kama intaas waan sii wada dhibka ugu weyn Ronaldo kunka gool waxa ka raacay in XTC ay carabta dhan wax u haysiiso isagu markaa waxa ku jira inaan iskuursanaan rabnaa intii uu kunka gool ku mashquulsanaa qoftii waxay noqotay millionaire waa gabadhii ugu horeysay ee ka faa'iideysatay magaca Cristiano Ronaldo marka ayada markii carabta timiday oo tiri Cristiano iyo anaga waxba naga dhaxeeya oo ninkana kun gool ku mashquulsanaa xayeysiisyadii ay u soo bandhigaysa carabta ay waxay ka say millionaire bay qoftii noqotay 30 something million bay samaysay marka qoftii hadda waxay taagan tahay mid kale ay soo gelisay la liigi meesha Cristiano Ronaldo mid kale oo cadaan ay soo gelisayba Cristiano qacba ka yeedha markaa nin kale oo cadaan ay booskiisii soo gelisayba xiriirkii Cristiano kala dhaxeeyay markii millionaire noqotay nin kale oo cadaana ay booskiisii gelisay Ronaldo markaa waxa la leeyahay carabku aad u qaniinaya waana gabadhii ugu horeysay ee magaciisa ka faa'iiday waxaan public waaye jira idada caalamka dhan baa waxay qorayaan qoftaan ay qorayaan Ashraf Almosh ninka cadaanka hadda la socdo ex boyfriend ay ku laabatay xaysiis la sameeyay what Ronaldo naagti laga xoogay Rodriguez man wow Imraan والعمران وبلاي بوغين والله واحد عصبي waxaan aad igu cusub markaad waxaan wax u soo jiray miyaa mise hadda bilaw hadday bilaamatay shaqadana markii ay saas u soo qarxday qoftaana la arkay Cristiano wuxuu isku boojeynaya kunka gool laakiin carabta dhan iyo jiraa'idada caalamka waxay qorayaan warbaahinada waxay wada qorayaan gabadhan sida dadka ay wada sheegaan waxay yiraahdaan Cristiano Ronaldo less than 40 like gabdhood ayuu la soo sheekaystay 40 gabdhood waana gabadhii ugu horeysay ee magaciisa ka faa'iideysatay millionaire ku noqotay kuwa kale kama faa'iideysan dadku kala aqlab arinta haddaan ugu sii soconno waxaan usii gudbaynaa xulkeena Soomaaliya horta
ayaga naftooda Soomaaliya aad iyo aad ayaan dhalinyarada xulka Soomaaliya aad baan meeshan ugu salaameen horta xulka qaranka Soomaaliya haye ciyaar ay la ciyaareen xul aad marka la fiiriyo Guinea la dheeleen waxaan u ciyaaray wariyahan aad isaga naftiisa halis oo ka ciyaara Yurub gaar ahaan Jarmalka Borussia Dortmund kooxda la yiraahdo magacii waxaa la yiraahdaa Sergi Gizri magac noocaas uu leeyahay haye مديله غيرته مديله ciyaar ha haye niyo ninkaas ay qabteen horta dhalinyaradeen aad iyo aad ugu maarayaan in aad maanta dii la fiiriyo sida uu leeyahay tababar uga soo qaatay iyo xirfadiisa wixii hadii naga qabteen ما شاء الله kulli ciyaar fiican bay ciyaarta Soomaaliya laakiin ciyaarta Soomaaliya laakiin waxa ku dhamaatay ever goalkeeper naftiisa ciyaarta Soomaaliya xagee lagu dheelay waxa lagu ciyaaray Guinea bay ku ciyaareen marka goalkeeperka ayaa wuxuu sameeyay badbaadiyo inaba cajiib goalkeeper xulka Soomaaliya haye marka waxaan aan ugu sii bogaadin hadaan fursadan ka faa'iideysan qayso in dhalinyarada saas tababaraha sida hadda uu macnaha shaxdan hadda uu leeyay in uu ku sii wado sida dhalinyarada isla qabsadaan isla jaan qaadaan mar walba saas xulka qaranka Soomaaliya dhibaatadiisa waxay tahay ninka bishan ciyaaro bisha kale ma ciyaar hadan mid kale la soo gelinayo macnaha kulli waa arrimaha dhalinyarada xulka qaranka Soomaaliya dhibaatada ku marka ma hal mar haduu leeyahay mar labaad inuu leeyahay ma badanka ma soo noqdaan markii la fiiriyo arrimo jira awgeed marka qayso waxaan ugu jecelahay ciyaaraha ficilada ka dhasha Guinea iyo Soomaaliya ficil baa ka dhashay ficilka ka dhashay waxa weeyaan reer Guinea oo dhan in ay ka xanaaqaan sababta ay barbaro ula noqdeen Soomaaliya waa arko la soo taageeray wal aad baa li soo taageeray waxaan kaloo ku darsanayaa Soomaaliya waxaan kaloo ku darsanayaa in dhalinyarada xirfadooda cajiib kale iyo qofka Ilaahay wuxuu siiyay lagu qaato lagu qadariyo aan loo eegin qabiil ma xulka Soomaaliya maxaa arinta qabiilka arinta qabiilka in aanan loo fiirinin ciyaartooyo badan oo waxaa jira Soomaaliya waqti xaadirkan walibana coachka iyo waxa weeyaan ciyaartooyada oo hadda uu shaxda soo wada geliyay intoodaba ma kala dhacaan laakiin waxa laga yaabaa arin inay saameyn ku yeelato qabiiladan Soomaaliya dib u wada kala dhigay maanta meel fiican bay soo istaagtay baad Soomaaliya barbara ay noqotay si fiican aad baan u bogaadinayaa Soomaaliya haddaan arrintaas xulka Soomaaliya aan ku sii socdo wax yar waxaana tababaraha kula talinayaa in chance la siiyo dhalinyarada wadanka joogta Soomaaliya badanka hadda markaa fiiriso xulka qaranka Soomaaliya waxaa ciyaaraya waa dhalinyarada dibadda iyo diaspora ka yimid arrinta naftigeeda marka dad waxaa jira talented ah wadankii jooga aad u ciyaara oo badan صح kuwaas chance la siiyo nimankaas ayaa chance u baahan صح واو waa sax wey waa idea fiican wey ما شاء الله حاسب عالم كرت waxyaalo badan baa cusub صح waxa horta caalamka weegan waxa ugu qosol badnaa dhacay waxaad nin Kenyan ayaa uu fariistay uu fakiray kaligiis markuu fakiray صح wuxuu ninka wuxuu iska dhaadhiciyay inuu furto police station oo asiga kaligiisa dawladda ogeen oo tugnimo ninka asaga police station ka furtay horta uu kala kacday dad buu shaqaaleysiiyay waa dhowr ilaa 6 bilood amal bay socdaan inuu Kasimu County meelahaas heeda marka ninka asaga fikiray maskaxdiisu kala imaaday waa Kenya ka dhacday ninka uu fikiray police station buu furtay dad badan buu shaqaaleysiiyay ticket go xildhibaanada qaar oo iska soo xirxiranay wax balaayo dhan investigation lacagaha madow dadka dhaqayo raadsan jiray waa the police station buu asaga haysta wey ninka asaga hadda la ogaaday ninka asaga meesha dawlad wax ogba ma jira tukaan marka dad badan waa tukaan uu kaligiis furtay oo qof cidna la ogeen oo dawladana la ogeen way calaasho waxa lagu tusay Afrika in dawladda ay iska warhaynin horta qisadaas way dhacday صح ninka Trump ku noqon maanta asagana Trump maanta wuu hadlay wuxuu yiri horta madaxweynaha Kenya batatan wuxuu yiri carrada Mareykanka lugta ma soo saari kara wuxuu ku leeyahay saaxiibo ku noqon laakiin China saaxiibo u leeyahay China saaxiibada ninka hadda uu mamnuucay ma iman karo taasna horta aad baa uga laakiin Kenyaanka aad baa uga carooday waa arrin qaldan bay ku leeyihiin
madaxweynaha Trump waa cunsuri marka arrinta arrin la yaabay Cabdullaahi arrin waxaa jirta oo mar aan ka dhaxgalay oo ku saabsaneed Starbucks ha isla Starbucks California ka dhacday ha nin la yiraahdo Michael Garcia ha hay oo darawal weey maadaama basmado kulli iska Mexican magaas markaa fiirist okay Mexican hay niyahow Starbucks ku soo galay way uu dalbaday sawi inay waxa la qiyaasa drive through inay markii la qiyaas drive through hay kafee uu dalbaday waa nin darawal loo hoday inuu iska rabay shaqada sida caadiga hay marka kafee kulul ayaa loo dhiibay hay kafeega daboolkiisaba dee ma dabool macnaha si fiican looma xirin lama xiro daboolkiisa marka uu ku daatay kafee kulul dabka laga soo qaaday intoogada adkaatay wuxuu kaga daatay taranka xubinta taranka hay ninkii meeshaas isbitaalka loo qaaday wala de hoos majalato ka noqday sida caadiga marka lawyerkiisa wuxuu ku dooday ninkan waa dee noloshiisa waxaa soo gaartay dhaawac aad halis u ah okay marka $50 milyan Mareykanka ee shirkadda Starbucks mayo sugbal ninka xubinta hoos baa kofeegi kulul baa ku daataa meeshaas maxaa kaaga muuqata okay marka daamis ninka mashiinka dibdam uma shaqeynayo iskiilo waxyaabaha lawyerkiisa uu ku dooday kamid ninka maadaama mashiinka dibdam u shaqeynayn $50 milyan Mareykanka waa inuu qaataa wow insurance waa liba ka xoqday waali mashiinkiisa ma shaqeynayo laakiin marka ana su'aashan qaba waxay tahay lacag 50 milyan maxaa ku tiri ana su'aal baan weydiinayaa mashiinka ma shaqeynayo Soomaa iskiilo su'aal baan marka waxa weydiinayaa Amra okay $50 milyan Mareykanka lagu siiyay mashiintada shaqeynta qaadan leh niyo marnaba $50 milyan ma ku doorsadeen mashiinkayga mashiinkaada wallahi hatta mashiinkayga iska haysta adina أنا مشينك يا سلام أنا أشرفه ما because كنت المليون ما انتهى what are you talking about bro هذه طالك شفتي أكون قلا واسق الله فهمتي مشيك هدو وحصار لهن وهذا كل شيء يسريني انت مركو قد ما انت برادر هذا قنفل لقاته له سان فرانسيسكو دقي سان فرانسيسكو دقي نلعان نقول قاري قال له صاحب وراديات باين السلام يا لفتي قال بدنا ملوت عمرانو إن هذا راديات بكون سلامنا حتى قبل ما تبروجرام إن شاء الله أنا نرقب وترجينا نحس وحاجة تانية هذا كورس أسوق بالنوعان نغطي فنان باتهاي من الصورة نكون عزبيت ده كورة من الصورة تاعي أولد من الصورة ها مرك راديات بقوم فرح سنة هاي إن ما أنت نقلق بقى برنامج كأهم محا عصب هذا مرة واحد نمع نص ساعته هذا مرة أن يجلنا سؤالها يجوابها مركا شعبك وحن قد بهرت إذا سلامنا تغيرها شوقة مع عصب وحن إذا كعصرنا إن by the way أشرفوا إيميل كهوس بعد يقول رسالة إيميل بهيس هوس إذا يقولنا سؤالها أبقبتان نص ديرة وأن كجوابنا راديات بني سلام نفتي قال بدو منو بلا جوجتان بولا فرتون قران عديسان يو سلامي دنك ميديك ووغس عبد الله دنك بدع ونعيم دايما سؤالي سؤالي الشعب كأن ويدين هيان وي ومدة سوغيسين نعم دايما صدقوا horta assalaamu calaykum waa iska cibaadaysanaynay ramadaanki waa gabagabo 6 beri baa dharka ciidda ka dhiman xilliga la ciidi lahaa oo la labisan lahaa maasha allah kuwii ka faa'iidaystay ilaahay naga dhigo soonkiisana ilaahay nabad ilaahay naga gaarsiiyo annagu caafimaad qabno dhammaantiinna waa idin salaamay in codka liga gaabi waa dhici kartaa laakiin aad idin salaamay fanaan ma jeclo runta u sheegay dadka fahmaa stuudiyaha xataa codkaaga waa la kontroolaa shacabka ma gaarsiin karto الشعب كان هذا بعد السلام يا سؤالها اللي جت جوابها السويدين هاي سؤال بدن وي سؤال بدن بالشعب كانوا كويدين هي سؤال بدن بالناس ودرين عبد الله سودو هذا هو اي
كان قيس ودوه هي شعبك سؤالك ويدين هذا أوقع بغزاء ما حسوس عدان لي صوت كم نوع عادي ديار ما حسوس عدان وياه كو سؤالهم بلاونا بسم الله الرحمن الرحيم سؤاله وحنكون بلاونا أنا كوب بلاونا هي وقاس عبد الله يو سؤال شو أقول رسول حوي وقاس عبد الله أنت هذا دمنين حاجات جعلان لهاد إن هذا الحسكوات بسم الله شعب كلك سؤالو با يا أنا ذا ليفل أنت هذا دمنين حاجات جعلان لهاد إن هذا الحسكوات أرتو waxaan jeclaan lahaa intaan dhimanin inaan tago dalxiis ahaan u tago wadanka la yiraahdo Maldives. Maldives. Wow, it's beautiful country. ما شاء الله maxaa ku jeclaatay Maldives? Ni waa jasiirad iska qurux badan oo iska jawi degan. Horeywaad. May. laakiin waa meeshan jeclaan tahay. Waaye, Naima Diamond sidoo kale inta aad dhimanin xagee jeclaan lahayd inaad dalxiis aad ku aado. horta marka hore su'aashan habaarka ayaa soo qoray inta aad dhiman anaga toogasho ma ku xukuman Waxaa soo qoray habaar waaye waxaa soo qoray waliba dhanka TikTok adigoo GB wata waaye cid kale ma aha dhanka adag soo qoraysid inaan habaarti qoto inta ay dhiman ma toogasho anaga xukuman waan dil rabtaa umli waa dhanka TikTok waxaa soo qortay waxaa soo qortay Saharo Seed hadda qalad waaye su'aasha sahar horta waa salaamayaa aniga waxaan jeclaan lahaa inaan tago xaramka ilaahay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذيك كلها ما لها زاني هذيك adu meesha dooratida sugeynaa markaas meesha sadal alla aad waa israacina ani nicim anna waa israacina hadii kaliya tagta ana kaliya حرمك لك هذا وحيسته ودقاله هيسته واجب سما تاس واجب سفيان مد waxaan ka hadlaynaa dalxiis vacation vacation ana ka hadlayo taa waa asadiini waajib weeyda magaalada adduunka ugu jeclahay inaan taga Soomaaliya haddii vacation noqoto oo nolosheedii sanadaha aan ku noolaa aan weliga iloobaynin Kismaayo jubbaland bay ka timid Kismaayo caddi weliba waxaan jeclaanaa inaan tago labada dadka ma oga webiga Soomaaliya iyo badda waxay isaga darsamaan magaalada Kismaayo soo moog mucjisada adduunka aan Kismaayo ku arko waxa webiga biyihiisa iyo halkan brown ah badiyo buluug ah oo nasaas isku dhinac maray aan isku qasmin ka war magaalo mucjisa adiga inta dalxiis u aadilay aniga island ku taalo Brazil oo la yiraahdo Snake Island okay معناها أديك وإزدلي إلى إزدشدار تام. Snake Island بنجا. You wanna kill yourself. Well أدونك قفنا ولا أنا أسكر. ما لكن معناها Snake Island ما كتير وادي ما نيسا. because قف كسر نقد ويريا ما جوجل كم جلسي. ما واحد تكت سجال يتوبن قف سجال يتوبن قف وايد تاني. Nobody came back. نينك مساس كساكر صغير بمحد له ما يسوق دنتين. قف صار نقد ماله مركا you wanna kill yourself or you just go in there. No I just wanna go أنا. By the way I love Snake. هذا فكيشن مية أسقطها مثلا. مساس وانجا على I love Snake. أدوم مسا أنا بعد. موقته أنا أوجي إنه مسعدة واحدة بينه ولدش موقته. مسعدة. وتضيع بلاد. والله بالله دعوة والله أساسا لا دعوة. أنا ولي رب الكعبة. ذاتك أساسا ده. مسك عد يأوجي ولا شيء. سجال كذب. يمسك عبا ولا شيء دان هذا أوجي أنا بقول مصود دي لكور أنا أوجي مسمع عيجين ولا دشان لا هذا أنا مصد بقول مسند دي لكور أنا فهم الكينا أنا مركي اللي قدر أنا حبت سود دي لي سجال أيقول دي لا أنا حبت دي لي بقول كسر برك سديك ولا لاتينا ماشي تزيد دسين نيو مساسك أنا عادي مجعلها لكن دتك قار مجعل مساسك أنا الله في سناكس سو مركي تزيد دس أساسا كنت دورت I really love